sidaynu u soo dhoweynayno ama u istiqbaalayno bisha Ramadaan oo aynu ognahay inay ka mid tahay arkaantii islaamka oo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam buniya alislaamu calaa khamsin islaamnimada shan ayaa lagu bineeyey uu nabigu tilmaamayo shantaasi ay ka mid tahay markaa waa sawmu ramadaan bisha ramadaan in la soomo idan rukni weyn oo ka mid ah arkaanta islaamiga ayaynu isku dayaynaa inaynu gudanno nabiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabada waa ugu bushaarayn jiray waa xadiidka sunan النasaa'i ku yaala sheekh alalbaanina saxiix ligayri ku tilmaamayo wuxuu nabigu leeyahy ataakum ramadaan shahru mubaarak farada allahu caza wajala calaykum siyaama waxaa idin yimi bishii ramadaan oo bil barakaysana oo ilaahay subxaanaه wa tacaala soomkeeda idinku waajibiyey albaabada samadaa la furaa ama albaabada jannadaa la furaya albaabada naartana waa la xidhayaa buu nebigu tilmaamay shayaadiinta kuwooda waaweyn ee maradada ana shaydaannimada ku mudhxay kuwaana waa la xidhayaa waxaa ku jira buu nebigu ku bushaareeyay habeen kun habeen ka fadli badan qofkii khayrkeeda laga mamnuuco ee khayrkeeda heli waaya kaasi waa khayrlaa wuu nebigu ku tilmaamaya faqad xurim yacni waa mid khayrka laga mamnuucay sida ogeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu bushaaraynayaa qiimaha ay ku leedahay dadka muslimiinta agtooda iyo sida la rabay in loo weyneeyo waxa kuugu filan nebigu calayhi salaatu wasalaam weynaynteeda waxa uu ku tilmaamay oo runtii keensanaya in qofka muslimka isku dayo inuu bishatan uu u diyaar garoobo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan sunan ibnu maaja ku yaala sheekh alalbaanina uu saxiixinaya ama xasan ku tilmaamayo طalxa ibnu cubaydillaah saxaabigii la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahy laba nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo mar soo wada islaamay oo islaamnimadoodu mar qura wada ahayd طalxa ayay la joogeen waxaa mide aad buu u dadaali jiray laakiin labadaba waa dadaalayeen laakiin nin baa dadaalkiisu aad u muuqday markii dambena jihaad buu istishaad ku qaato shahiid buu noqday kii kale wuu ka nolol dambeeyey oo sanad buu sii noolaa kadib buu sanad dabadeed kii kale dhintay riyo ayuu ku riyooday markaa طalxa ibnu cubaydillaah riyada wuxuu ku riyooday iyadoo jannadii looga yeedhayo dabeetana albaabkii jannada inta la fura kow waxaa loo yeedhay kii dambe dhintay labada kii shahiidkee hor dhintay mooyaane kii dambeeyey ayaa loo hor yeedhay markaasaa haddana loo yeedhay buu yidhi kii shahiidka noqday kadib baa aniga laygu yidhi buu yidhi adiga weli wakhtigaagii may gaadhin warkii baa saxaabada gaadhay waa la isla dhex maray dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi miyaa la yaabantiin haabay yidhaahdeenoo labada nin dee ka hore nala dadaal badnaa kii hor dhintay ee weliba jihaadka galay ee shahiidka noqday kaas baa dee dadaalkiisu nala badnaa bay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam su-aal buu weydiiyey alaysa qad makatha haada bacdahu bisana kani kan dabadii miyaanu sanad noolayn buu nebigu yidhi waxay yidhaahdeen haa waa noola ramadaanna waa soo gaadho waa soomay oo waa tukaday oo masaajidkuu ku tukaday soomaha buu nebigu yidhi sanadaasi markaasay yidhaahdeen haa kadib buu nebigu yihi famaa baynahumaa abcadu mima bayna asamaa'i waalard labada nin waxa u dhaxeeya inta cirka iyo dhulka u dhaxaysa yacnii kan cimriga dheeraadkaa la siiyey ee dabeetana cimrigii dheeraadkaa bil ramadaan weliba u soo gashay ee bishii ramadaan soomay ee masaajidka salaadda ku tukanayey ayuu nebigu wuxuu tilmaamayaa acmaasha uu samaystay ee kaa hore ka xidhmay inay dhaafinayso kii hore acmaashaana wuxuu nebigu ka tilmaamay soon iyo salaad idan hadday qiimaha intaa leeg ramadaan iyo ajarka la helaa sidaa u weyn yahay waxaa habboon in ramadaan loo diyaar garoobo
oo aan cunno loogu diyaar garoobin. Dadku inta badan waxay dhahaan bishii Ramadaan baa soo galaysa dabeetana reeraha biilkooda la kordhiyayo cunnada aad loo badsadaa. Cunnaduna waa wixii laga soomayeyba. Waxay ahayd bishan in biilku hoos u dhaco oo dadku cunnada yaraysto oo la soomo. Akhriya adduunba saasay faa'iidadu ku jirtaa.